waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah Dani iyo Axmed Madoobe oo ku kulmeen Muqdisho duugta wariyaha Al Jazeera ee la toogtay oo lala sugayo walaalkeeda oo Soomaaliya ka imaanaya ee qaybta dambe warkeena oo aad ku daawad doontaan farqiga u dhaxeeya lacagta laga qaado musharaxiinta madaxweynaha dalalka Afrika iyo Soomaaliya qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka dalka TV Media fadlan daawade haddaad nagu cusubtaan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada sida joogtada weela wararka iyo warbixinada 24 saacan u baahino aragtidiina halkoos noogu reeba muuqaalkana si share gareeya laakiin waa inuu muhiim haatan nagu soo dhawaado qodobada aad maqasheen oo dhameystiran faahfaahin kala duwan waxa ay ka soo baxayaan kulan dhaxmaray Axmed Madoobe iyo sidoo kale Saciid Dani warar dheeraada ayaa laga helayaa kulan ay albaabada u xirnaayeen oo magaalada Muqdisho ku dhaxmaray madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sida wararku sheegayaan kulankan oo casuumaadiisu uu fidiyay Dani oo uu sharaxan xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya ayaa diiradda lagu saaray xaaladda guud ee dalka si gaara arrimaha doorashada madaxweyne ee loo madarsan yahay 15 bishan waxaa booqasho noogu yimid oo aan kulan wada qaadanay madaxweynaha dowladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxaana ka wada hadalnay guud ahaan xaaladda dalka ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay bogga Saciid Cabdullaahi Dani Axmed Madoobe ayaana la rumaysan yahay inuu dooqa koowaad ee musharaxiintu u yahay Saciid Dani walow uu haysto dooq labaad oo xildhibaanada ka soo baxay Jubbaland uu doonayo inay u soo saaraan waa haddii Dani uu soo dhaafi waayo wareegga koowaad ee codeynta oo ay u gudbi doonaan 4 musharax ee ugu sareysa si kastaba kulanka Dani iyo Axmed Madoobe ayaana sidoo kale wararka hoose aanu ka heleno waxa ay tilmaamayaan in looga hadlay sixitaanka madmadow yar oo maalmihii dambe soo kala dhaxgalay Axmed Madoobe iyo Dani waa sida ay tilmaamayaan wararka qaar oo uu helayo dalka TV Media madmadowga ayaa la sheegayaa inuu ka yimid arrimo la xiriiray doorashooyinkii guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo kala shaki yar oo soo kala dhaxgalay xubnahan sidoo kale Axmed Madoobe ayaa la sheegayaa inuu ka warhelay in Dani uusan ba muhiimadiisa koowaad siinaynin arrimaha la xiriira sidii uu hogaanka dalka ugu guuleysan lahaa taa beddelkeedna uu doorbiday in xubnaha qaar ee musharaxiinta uu kula gargartamo codadka isla markaasna haddii ay ku guuleystaan madaxweynaha sidii uu uga heli lahaa xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Axmed Madoobe oo taa ka duulayo ayaana la sheegay isaguna dhankiisa in uu kulamo la bilaabo xubno kamid ah musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya taa oo ku aadan in iyagu markii ay ku guuleystaan xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya uu la galo heshiisyo ay qayb ka tahay in shakhsi uu wato loogu dhiibo xilka ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya in arrimaha maamulkiisa aysan dowladda waqtigaas timaada cadaadis xoogan saari doonin hase yeeshee Dani ayaana dhankiisa bilaabay in Axmed Madoobe uu ku raaligeliyo in waxyaabahaasi aysan jirin isla markaasna xildhibaanada Jubbaland ee dhankooda uu ku dhiirageliyo sidii codadku u sii lahaayeen isaga oo sheegay inay ka go'an tahay sidii uu ugu guuleysan lahaa xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya Axmed Madoobe oo Muqdisho u yimid arinta la xiriirta xaalinta arrimahaas iyo waliba sidii codadkooda meel loo aadin lahaa xildhibaanada Jubbaland ayaa dhawaantan kulan uu la qaatay waxaa la sheegay xildhibaanadaasi inuu kala hadlay arrimaha la xiriira codadka iyo shakhsiga ay siinayaan hase yeeshee waxaa la sheegayaa in Saciid Dani iyo Axmed Madoobe ay isku afgarteen arrinta ku aadan codadka la siiyo Saciid isla markaasna Axmed iyo sidoo kale arrinta kale ee ku aadan haddii uu Dani guuleysan waayo cidda kale ee codadka la aadinayo inkastoo aan la ogeyn in arrinkaasi ay isku waafaqeen haddana waxaa isha lagu hayaa kulamadan gaargaarka ay dhaxmaraya Saciid Dani iyo Axmed Madoobe oo labadoodu ku wada sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya geesta kalena duugta wariyaha Al Jazeera ee la toogtay ayaa la sugaya walaalkeeda oo Soomaaliya ka imaanaya wariye ka tirsaneed warbaahinta Al Jazeera ayaa la toogtay xilli ay ka soo waramaysay duulaan ee ciidamada Israa'iil ku qaadeen dhulka la haysto ee daanta galbeed gaar ahaan deegaanka Jenin sida ay baahisay Al Jazeera duugta wariye Shireen ayaa la sugayaa walaalkeeda oo qaramada midooba u shaqeeya oo ka imaanaya gudaha dalka Soomaaliya wareysi uu telefishinka Al Jazeera la yeeshay qaar kamid ah ehelka wariyaha la dilay ayaana sheegeen in Shireen Abu Aqil walaalkeedu uu ka tirsan yahay shaqaalaha qaramada midoobe ee Soomaaliya isla markaasna lagu wado in dib ugu laabto Falastiin xilli walaashiisa la toogtay Shireen Abu Aqil ayaa waxaa toogtay ciidamada Israa'iil sida ay sheegtay warbaahinta Al Jazeera ee Qatar fadhigeedu yahay waxaana sidoo kale la toogtay wariye kale inkastoo uu dhaawac soo gaaray militariga
Israa'iil ayaana beeniyeen in ciidamadoodu ay dileen wariyaha balse ay kaliya ku waxyeelooday iska horimaad dhacay waxayna intaa ku dareen inay eegayaan suurtagalnimada inay toogteen dabli Falastiiniyiin xilligii uu socday weerarka. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaana ku tilmaamay toogashada Shariin Abu Caqiil arrin naxdin leh isla markaasna ay bilaabayaan baaritaan wadajir ah oo ay dhacdadan kala shaqeynayaan mas'uuliyiinta Falastiin. dhanka kale ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Qatar ayaa sheegay in Shariin Abu Caqiil laga toogtay wajiga xilli ay xirneed jaakada iyo koofiyada ay xirtaan wariyaasha ku sugan dhulka ay ka taagan yihiin colaadaha. Shariin Abu Caqiil oo muddo dheer wararka ka soo tabinaysa daanta galbeed ayaana si toos ah u tabinaysa iska horimaad ee ciidamada Israa'iil ku lug lahaayeen oo ka dhacay halkaasi waxaana la sheegay in rasaas kaga dhacday madaxa. waa wariye aad looga yaqaano bariga dhexe iyadoo kamid ahayd wariyaasha ugu saameynta badan laanta carabiga ee Al Jazeera waxayna halkaasi ka shaqeynaysay muddo 15 sano sida ay tabisay Al Jazeera. wasiirka arrimaha dibadda Qatar ayaa falkan Israa'iil ku tilmaamay fal argagixis ah oo uu qaran maalgelinayo. wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaana sheegtay in Shariin Abu Caqiil loo qaaday isbitaal xilli ay ku jirtay xaalad halis ah iyadoo markii dambena u dhimatay dhaawaca. wariye Nida Ibrahim oo ka tirsan telefishinka Al Jazeera ayaana sheegtay in Shariin ay ahayd saxafiyad aad loo ixtiraamo waxayna sheegtay in toogashada wariyaha uu naxdin ku yeeshay saxafiyiinta la shaqeynaysay. toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa dhacay mowjado weerar ah oo u dhexeeya carabta Israa'iiliyiinta iyo shacabka Falastiin waxaana weeraradaasi ku dhintay 17 qof oo Israa'iil ah iyo 2 qof oo Falastiin ah. ugu yaraan 26 Falastiiniyiin ayaa la dilay oo ay ku jiraan kuwa la toogtay iyagoo qaadaya weeraro ama mintidiin iyo dad rayid ah oo lagu dilay weeraro ay Israa'iil ka geysatay daanta galbeed. Israa'iil ay weerar ku qaaday degmada Jenin halkaas oo ay ka yimaadeen 4 kamid ah Falastiiniyiinta weerarka ka geystay Israa'iil. وهاجاجي داود يالي مكان waxaanu eegaynaa farqiga u dhaxeeya lacagta laga qaado musharaxiinta madaxweynaha dalalka Afrika iyo Soomaaliya. waxaa maalmihii dambe si weyn dalka looga hadal hayaa doorashada madaxweynaha Soomaaliya taasoo lagu wado in 15 bishan ka dhacdo magaalada Muqdisho. doorashada ayaa waxaa isku soo taagay 39 musharax oo isdiiwaan galiyay halka kuwa kale ay iskaga hareen kadib markii ay soo buuxin waayeen shuruudihii looga baahnaa oo ay soo saareen guddiga doorashada madaxweynaha. habraac iyo shuruudaha musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkan ayaa waxaa ka qayb ahaa bixinta lacag gaaraysa $40,000 oo la isku diiwaan gelinayo waana qarashkii ugu badnaa ee ku baxa diiwaan gelinta musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya. waxaa warbixintan ku eegaynaa qaar kamid ah dalalka qaaradda Afrika iyo lacagaha musharaxiinta laga qaado taas oo marka loo eego midda Soomaaliya ay sanadkan noqonayso midda ugu badan ee laga qaado musharaxiinta u tartamayaan xilka madaxweynaha Soomaaliya. dalka Tanzania oo ah dal dhaca bariga qaaradda Afrika tirada dadkiisuna ay gaarayaan 59.73 milyan oo qof ayaa waxaa dhowrkii sanaba mar ka dhac doorashada madaxweyne. musharaxiinta isku soo taagay xilka madaxweynaha dalka Tanzania ayaa waxaa laga qaadaa lacag gaaraysa $1,000 taas oo lagu diiwaan gelinayo musharaxa madaxweynaha dalka Tanzania. dalkan ayaana kamid ah dalalka ugu yar ee laga qaado lacagaha musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha waxaana dalkan hadda madaxweyne ka haweeney lagu magacaabo Samia Suluhu Hassan taas oo bedeshay madaxweynihii ka horeeyay kadib markii uu geeriyooday. Kenya dalkan oo daris la Soomaaliya ayaa isna kamid ah dalalka qaaradda ku yaalo oo 5 sanaba mar ay ka qabsoonto doorashada madaxweynaha. musharaxiinta xilka madaxweynaha dalka Kenya isku soo taagaya ayaa laga qaadaa lacag gaaraysa $10,000 taas oo ah lacagta diiwaan gelinta musharaxiinta madaxweynaha dalka. Burundi dalkan oo kamid ah dalalka ku yaala qaaradda Afrika tirada dadkiisuna ay gaarayaan 11.89 milyan oo qof ayaa dhowrkii sanaba mar ay ka dhacda doorashada madaxweynaha. dalkan Burundi ayaa marka la gaaro doorashada madaxweynaha musharaxiinta xilkaasi isku soo taagtay laga qaadaa lacag dhan $7,500 taas oo ah lacagta isdiiwaan gelinta musharaxiinta. Ghana dalkan oo dhaca galbeedka qaaradda Afrika
tirada dadkiisuna ay yihiin 31.7 milyan oo qof ayaa ka mid ah dalalka Afrika ee lacagaha ugu badan laga qaado musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimo ee dalkaasi. Ghana waxaa musharaxa u tartamaya xilka madaxweynaha laga qaadaa lacag dhan $17,000 oo ah lacagta isdiiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya. Marka loo eego dalalkan aan kor ku soo xusnay lacagta laga qaado musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ilaa xad uga badan, waxayna midan noqonaysaa midii ugu badneed ee abid laga qaado musharaxiinta u tartamayaan xilka madaxweynaha Soomaaliya oo tiro ahaan dadka ku nool lagu qiyaaso wax ka yar 20 milyan ayaa waxaa musharaxa u tartamayay xilka madaxweynaha Soomaaliya sanadkan uu bixiyay lacag dhan $40,000 Mareykanka. guud ahaan daawadayaal naga inta warkii oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media fadlan daawade haddana nagu cusubtahay nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada sida joogtada oo helo wararkii warbixinada 24 saacan u baahino aragtidiina halka ugu reeba muuqaalkana sii shargareeya laagtiinana waa inoo muhiim daawadayaal waana ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka oo arka janalka dalka TV Media.